السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي إباه ملك استوجبتان كسر دوادا برك لما نمت التلفزيون كتشيم إن وحادين ورهم دونتاني وإسريب رهين هذا نسرهبي قضى بدر قدر كورونا وحا كمدة afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi ayaa furtay kala fadhiga sagaalaad golihiisa lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida waxaa la ansixiyay miisaaniyadda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya miisaaniyadaas oo dhan 65 bilyan oo bir daawadyaal taasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karoon haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kala faahfaahsan daawadyaal isku soo noqod wanaagsan afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi ayaa furtay kala fadhiga sagaalaad golihiisa lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida kaasoo hor yaala ajendayaal iyo barnaamijyo faafahinta warkaasina aan horey ugu soconno afayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida Marwaayaan Cabdi ayaa furtay kala fadhiga sagaalaad ee golaha lixaad ee xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida kaasi oo ay hor yaalaan ajendayaal iyo bayaano ay ka mid yihiin kuwan soo socda ansixintii hadalka qoraaleedkii kala fadhiga sideedaad dhageysiga ansixinta warbixinta xafiiska golaha xildhibaanada ee sanad miisaaniyadka 2017 dhageysiga iyo ansixinta warbixinta hay'adaha garsoorka dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 dhageysiga iyo ansixinta warbixinta xafiiska hanti dhawrka guud ee dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 dhageysiga iyo ansixinta warbixinta wakaaladda warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 dhageysiga iyo ansixinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida bayaanka meelinta miisaaniyadda dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2018 bayaanka nidaamka maamulka iyo maareynta mashaariicda dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 bayaanka go'aaminta nidaamka kaydka iskaashiga horumarinta deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 bayaanka qaab dhismeedka dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 waxaa la ansixiyay miisaaniyadda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya miisaaniyadaas oo dhan 65 bilyan oo bir faafahinta warkaasina aan horey ugu soconno waxaa la ansixiyay miisaaniyadda dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya taasoo ah lacag ka badan 65.7 bilyan oo bir madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa furay kala fadhiga koobaad ee golaha fulinta dawladda deegaanka Soomaalida sanad miisaaniyadka 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya kaasoo lagu ansixiyay ajendayaal ay ka mid yihiin warbixinta waxqabadka xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ee sanad miisaaniyadka 2017 hamle 2016 sana 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya bayaanka meelmarinta miisaaniyadda dawladda deegaanka Soomaalida miisaaniyadda la ansixiyay ayaa ka badan miisaaniyadii la ansixin jiray sanad miisaaniyadkii tagay ee 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya xafiiska heer deegaan waxaa loo qoondeeyay miisaaniyad 36.9 bilyan oo bir halka miisaaniyadda hirgelinta yoolasha horumarinta waara loo qoondeeyay 1.4 bilyan oo bir sidoo kale degmooyinka maamul magaalooyinka iyo magaalooyinka dawladda hoose ayaa loo ansixiyay 27.4 bilyan oo bir miisaaniyadda deegaanka ayaa 50% noqon doonta mid ka mid ah dakhliga uu deegaanku soo saaro halka 50% laga heli doono kaabayaasha halka 50% laga heli doono kabka khasnadaha dhexe ee dawladda federaalka iyo deeqaha dibadda arrimahan waxay tilmaamayaan in deegaanku ku tallaabsaday guulo waaweyn oo dhinaca kor u qaadida dakhliga gudaha ah kaasoo ka soo xaraynaysa dhaqaalaha deegaanka 7 sano ee u dambeysay aqoon isweydaarsi wada tashi ah oo laga hadlayo caqabadaha ka jira hirgelinta nidaamka maaliyadeed ee xarumaha caafimaadka ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga faafahinta warkaasina aan horey ugu soconno
aqoon isweydaarsi oo lagaga hadlayo caqabadaha ka jira hirgelinta nidaamka maaliyadeed ee xarumaha caafimaadka iyo mashruuca caymiska caafimaadka ee bulshada ee deegaanka Soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida hay'adda UNICEF oo ay si wada jir ah u shaqayn doonaan ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen agaasin waaxidka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida madax xafiiseedka caafimaadka degmooyinka iyo maareeyaasha mashruuca caymiska caafimaadka 13 xarun caafimaad oo ah kuwii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay mashruuca caymiska bahwadaagta xafiiska iyo marti sharaf kale ayaa laga wada dooday natiijada ka soo baxday daraasad dhawaan lagu sameeyay heerka ay marayaan shaqooyinka xarumaha caafimaadka caqabadaha ka jira nidaamka maaliyadeed ee xarumaha caafimaadka iyo caqabadaha ka jira caymiska caafimaadka ee bulshada madax kooxeedka waaxda adeegga daryeelka aasaasiga ah ee xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in madashan loo soo qabanqaabiyay sidii loo sixi lahaa caqabadaha badan ee ka jiray xarumaha caafimaadka iyo sidoo kale sidii si wada jir ah looga shaqayn lahaa shaqooyinka daawadayaal waxaa si toos ah ula socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMM waxaa idin waramaysay anigoo ah Isra Ibrahim Aadan Israhabi inta warka kulmi doona waxaan kaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh